ومدرسة الفرقان الإسلامية كوشرتا وحن حسوستي وقتي عن مدرسة دقيقة شري إن هلكا أضمان تداور ككجة شرتان عن كجة شري هذه أضمان توفر سنة هاي إن سكول هو سكول كي إن كلي وحن ملينا مسؤولين كسكول هو يدسي وربحينها هذه المقاعد كويليو مرلبات وسارة محمد عبد الله هل كان على قريانية مدرسة الفرقان الإسلامية وانكيلي أفرتاس مقصينا ينقدم بيا أيام مركز يالو وحكو ديجنشري إن حلقة يعني قال لي كيناي دهانات بانو يرا وايو qoladii iga waaweyneed oo markaa iskuulka la keenayay madrasada la keenayay ayaan idin kama harayo waa diiday inaan ka haro ka bacdi macallimiintaydii macallin kamid ah Umar Xaaji Mubaarak la yiraahdo ayaa yiri ha joogtay daaya way iska baran doontaa adigu hadalkii sidii baa lagu qaatay sidii baan adigu kaga mid noqday madrasatul Furqaan al-Islaamiyya الحمد لله رب العالمين وانكي هالكن مركي لغا قري سيدي بان ku dhamaystirtay waxaana nahaardeydii ka baxday ee ka qalin jabisay 2002 waqtigaasi kumaan ay kayno kaliyaatay inaan wax ka barto madrasada oo kaliya laakiin se iskuulada dawladana dhinac baan ka wadi kulli waxa laga yaabaa idinka laftigiinu inaad gelinka horena meel soo dhigataan gelinka dambana meel soo dhigataan sidaas oo kale aan gelinka horena meel soo dhiganayo gelinka dambana meel soo dhiganayo waliba isku grade baan ahaa halkan markii wanka laga qoray halkaana waa baa laga qoray isku waqti baan markaa qalin jabinteedii ay ku dhacday waqtigaasi hadaba madrasatul Furqaan al-Islaamiyya imtixaanada waxaan looga soo sameyn jiray Djibouti imtixaanka macallimiinta looga sameeyay Soomaa Djibouti baa naga looga keenay jiray imtixaanka oo waxa isku xidhnaa madrasatul Furqaan Djibouti iyo tan Hargeysa isku xidhnayd sometimes waxa dhacaysay inuu imtixaamaadku ay isku hagaagaan أفريت من كما جدود مدرسة الفرقان الإسلامية اللي قاعدنا أيه يا أفريت من كهالك اللي قاعدنا أيه وحيل قليل شمنين ولا إسكايت هاي واتقران كرتان وحاسونا لكي سوانو كتب على ما نانو أقونين تيفي ما نانو أقونين موبيل أما إنترنت كل يوم وحانكو يكي وحي هيد وابوغيغا ساينتا صورنا بنوها intaas waxaan hiigsanaynay meel fog baan hiigsanaynay oo ahayd inaanu baldadkan iyo dalkan wax ku soo celino ka bacdi markii aan sidii ku qalin jabiyay ka gamaan harin waxbarashadeedii sidii jaamacadda Hargeysa ayaan galay fakalka la yiraahdo Facal Education baan galay si aan bal waxbarashadeedii dib jiilkii ugu soo celino كبعدي وحن لبس النضاد بنهالكي كشري وانكسر بحي هذا نوحن ستة سو قلي كلية دي تعبر كمعلمين تيكتيم كبعدي دبديتنا وحن نقضي معلمات كحول قشة دوسية دا دولية ويا وقت قاسي waqtigaasi aan bilaabay waxay ahayd 2008 ayaan macallinimadeedii ugu horeysay aan bilaabay si toos ah wasaaradda waxbarashada ayaa noo qaadatay 150 macallin ayaan si toos ah ugu soo baxnay dalka markaa iskuuladana lagu soo qaybiyay 7 aan ahayn markaasi 3 inan iyo 4 hablood ayaana loogu soo qaybiyay iskuulka hoose dhexe biyo dhacayga hoose ka bacdi halkii baan adigu waxbarashadii ka bilownay muddo waxaan joogay halkaasi dhowr sanadooda
kabacdi waxa ay noqotay inaan haddana iskuulkii aan ka bedelano iskuulka naasaha hablood kulay wad qoslaysaa naasaha hablood maxaa la yiraahdaa waxa way fahmaynaa waan garan karnaa maaha kuweena ma aha laakiinse iskuulka markii magaca loo bixinay imka waraaba salaam baa la yiraahdaa waraaba salaam baa berigii hore loo oran jiray laakiin iskuulka si sareeya la yiraahdaa imka waraaba salaam laakiin isaga imka naasaha hablood baa la yiraahdaa wax kalena looguma bixin labada buurood ee dhabarka ka xiga ee ay Hargeysa caanka ku tahay baa iskuulka loogu magac daray kabacdi halkii wax yar baan joogay waan ka wareegay hadda waxaan joogaa wasaaradda waxbarashada waxaan joogaa xafiiska kormeerka guud ayaan joogaa waxaana ka mid ah saraakiishaasi ka tirsan wasaaradda waxbarashada qofku hadafkiisa inuu gaadhaana way wanaagsan tahay hadafkiisa inuu gaadhaana aad bay wanaagsan tahay hadafkaan gaadheen halka imka gaadhay meel ka sii sarreysay waan hiigsanaya insha Allah idinkana sidaas iyo si lamid aan idinka rajaynayaa kani waa iskuulkii waxbarashada igu ababiyay indhaha aan ku kala furtay waxay la noqotay inaan iskuulkaygii aan dib ugu noqdo oo aan iskuulkaygii soo booqdo oo aan iskuulkaygii wixii aan waxbarasho ahaan ka wasaarad ahaan aan u qaban kara aan u qabto wixii aniga ka shakhsi ahaan aan u qaban karana aan u qabto kulli waxaan maleynayaa dadku way iska soo daba dhacayaan oo waxa jirta in la yiraahdo barnaamij ay wasaaradda waxbarashadu diyaariso la yiraahdo booqo iskuulkaagii baa jira booqo iskuulkaagii waxa weeyaan kolba qof baa idin iman doona waxaan maleynayaa intii hore malaha rag baa idin imanayay soo ma inantii ugu horeysay idin timaaday aniga malaha ku noqonaya soo saama yiraahdo macallin haddaba dardaaran baan idin siinayaa macallin ma jirto soo maaha inaan macallimada iskuulka wax ka dhigtaan teena soo hablood ee halkaa joogta barkeen qofba wax uu qaadan doonaa laakiin badba hamigooda ku jirta inay macallimiin noqdaan macallimiintaasi haddaba yaanay inaga noqon sida imika ay tahay hawayaan horta kulay iskuuladii dawliga ha waanu bedelo wax badan baanu ka bedelay oo inanta iskuulka waxbarashada joogtay dawliga ah ee macallimadii may soo dhaafi jirin afarta galaas ee hoose imika ilaa waxaanu maraynaa heer jaamacadeed inaan wax ka dhigi karno idinkana sidaas leeg baan idinku dadaalinayaa inaan halkaa ku eegaan kulay macallimiintana la kaftamee tartan baa naga dhaxeeya inaga iyo ragga si baynu wax wada baranaa Soomaa ragga wax la qaybsano hadday tahay xagga waxbarashada oo aynu iskuulada dib waxbarashada aynu u dhigno waliba waxaan rajayn lahaa halka maanta ay namadu wax inooga dhigayaan inay dhammaan hablooda ahaadaan aad baan u rajayn lahaa inta ka sugayaana waa idinka kulay barnaamijyo fara badan baa soo wada barnaamijyada faraha badan ee soo wadana waa wax ka muuqan doona iskuulkeena insha Allah kaasoo aynu ka wada qayb qaadan doono waxaan rabaa min ardayga galaaska ugu hooseeya ilaa galaaska ugu sareeya waxay ka wada qayb qaadan karaan inaan la imaado oo aynu deeta fikirka wada qaadano insha Allah kulay xiisas baa jooga waqtigu waa iska adag yahay igana raali ahaada intaan soo socday shaqada ka soo socday wadada saxmadahay taasa ciriiri igu keentay marka aad iyo aad baan idinka raali gelinayaa baad barkiin taagantiin aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taale ilaaha quruxda iyo sharafta ina sidii haybada ayaa mahadale waxaan idin sheegayaa aniga oo aad u yar oo idinka yar ila madrasadan
محوها فرقان عندي شري أو أرضي وهرسي في قلا نجحان هي دعسلها فلسطين عن كمل أها الحمد لله ما كانوا أرك يا قلوب عائلات هاي يا شرفت عائلات هاي يا هيبة عائلات هاي يا أرضي ذا قلوب بدن صوب البارسة إن شاء الله وحندين رجينا يا قلوب يديكوا والدة أو أبتكينا محو هاي ما أنت ساعد ليه وتشوفه ما أنت على عرون عن رأي أيام يشوف شوفته وكان لقتها يديك أنا وحنديه هي وتشيله إن عن يديك كشرف قرن سلام أنت وكرفنا إن شاء الله بدينا كل بعدان مدرسة إن شاء الله بدينا نتشيله السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه بعد ما سنتين أدو يصبرتان ولا لها شريتو سيدنا سكر أرضي سكول كاها ما تين صوب بوغي هذه بانو ما هنقي أنا أفكر ما ممكن كهالليين نصوب بوغان إن شاء الله تطلعنا وكلنا وينو يمن دونان وحن كبورني يا أرضي إن أي وتضع يحبلها سقادين قادان ودون أحسن sidaa uu guuta sheegay macallin guutu waarun anigu baday waan ahaa maaragtay arday iskuulka ka baxay waan ahaa guulo ilaa foofo marka meesha aan joogan maanta wada ka saan insha Allah idinka rajeynaya aad iyo aad baad mahadsantihiin